السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا ذي السلام ولا لي جميل كستو أدون قد كجوكتا ما أنت وحرمنا إنك هذا مقال كاس أقصافسا درس العبدي أو اسكو بدلي مفالي درس العبدي وحاو كسو لابتي سيدا وذوقنا ودانكي وحاو نسمي رنتي وحوان أكسن لكن مقال كان وحان وهل دونا وحياباس وسمي سيدا إيدادك وقوف العليين إيو قابك إيو أركين لدول تغي دونا قابك إيدادك وأركين inta aanan muuqaalka u guda galin waxaan kaa codsanayaa inaad channelka subscribe saarto muuqaalkana aad like saarto mahadsanid markana ku soo dhawaada muuqaalkii oo faahfaahsan qofka hore haddii aan soo qaadana waxa uu leeyahay Soomaali galbeed dhibaatooyin fara badan ayaa ka jira oo aanay dadka ogeyn Ilaahay ha u gargaaray ayuu leeyahay Dirisla Cabdina waxa uu leeyahay awl wanaagsan baad haysaa ee halka ka wad qofka xiga waxa uu leeyahay ninku dayasho mudan ayaa tahay walaalkay ayuu leeyahay Dirisla Cabdi ay ku wada qofka saddexaad haddii aan u gudubno waxa uu leeyahay wax fiican baad samaynaysaa laakiin marka qof aad wax siinaysa inta hortooda lacag ku tiriso oo aad qayb reebato farxad badan ma lahan marka hore agaasim ama wax yar ka fogow kadibna u soo qaadin waxaad ugu talagashay qofkan waxa uu leeyahay qofka aad wax siinaysid in aad lacag hortiisu ku tiriso kadibna aad qayb reebato qaybna aad siiso qofka farxad badan ma gelinaysa ayuu leeyahay laakiin marka hore intaad ugu soo talagashay qayb u soo habay ayuu leeyahay qofka afaraad haddii aan u gudubno waxa uu leeyahay ninkii siikiya saaxiib hawl baad u dirtay ayaamahan soo socda filo isagoo daynaya deeq gaarsiinaya dadkan maadaama ay siikay iyo Dirisla Cabdi xurguf hore ay ka dhaxaysay ay leeyihiin waxa uu ninkan sameeyo isagana waa uu sameyn doonaa marka sidaas ay ninka kale ugu daba jiidayaan mar walba qofkan kale waxa uu leeyahay masaakiinta kaamirada ka daaya billaah calayk run ahaantii horta qofka marka wax bixinayo waxa wanaagsan inuu qarsado qofkan kale waxa uu leeyahay maad ku faanaysaa wax qaybin anagana aragtideena ku aadan samafalkaas waxaan ku dhiiban doonaa qaybta dambe ee muuqaalka balse aan ku sii socona sida ay dadku arkaan qofkan kale waxa uu leeyahay sida aad maamada ooga farxisay allaha kaaga farxiyo baro adigana arrin wanaagsan baad wadaaye ilaahay ha kugu garab qabto ayuu leeyahay qofkan kale waxa uu leeyahay saaxiibkaygu mid baan ku sheegayaa sadaqada way fiican tahay balse sidoo allena faray wax u bixi oo igu sawirta iska daa walaal waad mahadsantahay Idris ayuu leeyahay qofkan kale waxa uu leeyahay Dirisla Cabdi baro in lagugu dayda ayaad mudan tahay wanaagaaga ayuu leeyahay qofkan kale waxa uu leeyahay waa arrin aad u wanaagsan laakiin waxa ka sii fiicnayn marka aad wax siinayso aadan dadka kale tusin waayo Ilaahay wuxuu daalacanayaa niyada qulubta ayuu leeyahay qofkan kale wuxuu leeyahay saaxiib waxa kaliya janno lagu muteysto Ilaahay bay yiri isku naxariista ana waan idin naxariisaniye waxa uu leeyahay hore u soo walaal qofka kale waxa walaal khayrka sii wad war ku dayda wiilkaas walaalihiis caawinaya waa shakhsi ku daysho mudan ayuu leeyahay qofkan kale waxa uu leeyahay haddaan wax bixinayo ma muujiyeen dadka wajigooda waayo faqiirnimo waa laga baxaa qofkan wuxuu leeyahay duub laakiin qofka aad wax siinaysa wajigiisa bulur u saar ama wajigiisa si aan loo garan aniga xitaa waa ila wanaagsanaan lahayd inuu sidaas sameeyo qofkan kale wuxuu leeyahay khayr alle ha kugu abaalmariyo waxaad la baxday in aad naga caawiso meel qabyo naga ah oo lagu barto hadalka eebe qofkan kale waxa uu leeyahay wallaahi Dirisla ku dayasho mudan yahay ee ha lagu daydo dhalinyarada lacagtooda ku fasahaday sidan hawada sameeyaan ayuu leeyahay qofkan kale waxa uu leeyahay aad iyo aad ayaad u qalbi wanaagsan tahay wayna ka muuqataa ayuu leeyahay anagana waa kan marka kan ay fikirkeena aniga haddii aan ka hadlo fikirkayga ilamay wanaagsanayn in uu duubo ama uu soo muujiyo sadaqada uu baxsanayo waayo sadaqada waxay ku wanaagsan tahay marka la qariyo in la qariyo marka laakiin isaga ayaaba sheegay oo dhahay sababta aan u duubaya aan u soo muujinaya waxay tahay inaan dadka soo xasuusina oo ay nagu daydaan maxaa yeelay dad badan ayaa jira oo wax haysta balse aan xasuusnayn amaba aanan ogeyn waxan
marka way fiican tahay dadkaasna in wax la tuso. Run ahaantiina aniga waa ila wanaagsan tahay waxa uu sameeyey Dirisle Cabdi. haddii muuqaalkan ku soo gaaray oo aad aragtay, waxaan kaa codsanaynaa inaad sii sheer garayso muuqaalkan. waadna ku mahadsan tahay.